السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحاب تشرفت لي وأمر كلية مقال عصب برتنا دقل هاني سانا وبرتني كل مجرني وبارنو في شيال هذه ما سنتين كسر هذا من اللي نكتش عليه هاي الله أيام هذا سكله سوق كان مقال كان أنه عافمات قبنا إذن كو عافمات قبا إلهي أن مهدا وعلنينا انت كدي ولا ليال سي شير قريب برنامجك أصحاب تلو ذاك لايك ميل دير بين gaarsiinaysaa subscribe na saar channelka boqol kun inoo gaarsiiye intaa kadib waa qisadeeni gabadhii ilmaha ma garanaysaa wiilka yar u dhiibatay baynu oran karnaa u dhiibatay marka qisada intaynaan u guda gelin hooyada wiilku maqan yahay qisadeeda intaynaan u guda gelin كومنتيدي dad baa commenti iyo inala soo wadaagay farxaan in la yiraahdo wuxuu yiri reer gaalkacayo hadii aad tahay dhaqankeena wax u dhimin ka bax sheekada gabdhaha walaal sheekadu siday aniga ila tahay in aan sheekooyinka gabdhaha soo gudbino ama nin ha ahaado ama gabar ha ahaado laakiin markasta aan sheekooyinkaas oo kale soo gudbino dad badan bay waxay u tahay waana qaadasho waxay gelin waa commentigi ataynu mar walba leenahay fikirka isku la wadaagna ma ogtahay marka wax badan waxay inoo tahay wacyi gelin dad badan oo dhibaatadani haysto baa qaabka uga bixi lahayn helaya dad badan oo iyagu dhibka ku haya dadkii baa ka daynaya dad badan baan ogeynba waxaan inay dhacaan ogaanaya khibrad ma garanaysaa baa laga faa'iidaya qof kale wuxuu yiri aaway sheekadii wiilkii hooyadii dilka ka badbaadinaysa macnaha ha sheekadaas qaybtaan dhamaynayna insha Allah waa ogahay hal qayb oo dhamaada hartay tani ku xigta hadii Allah aad baa u mahadsantihiin dhamaantiin inta commentiga soo bixisay iyo inta daawatay like saartay iyo kulligiinba waa idin mahadcelinaya inta kadib walaalayaal hadda koowaad waxa iska leh Allah caafimaad qabka isugu keenay ma hadda aan ilaahay u celinayna dunida oo dhan bay ka baaxad iyo mug weyn tahay waxay noo mareysay gabadhii ilmahan dhashay oo qof magac bulshada Soomaaliyeed ku dhaxla markaa ah barnaamijka salaamahana wariye la ordaya u tagay oo ay salaamihiiba ku bilowday gabadha inay salaanto iyadoo markaa ka warqabin meel ay dunida caalamka kaga nooshahay madalkii bay joogtaa madabad bay joogtaa midna iyadoo ka warqabin iyo gabadhii la salaamayay oo iyadoo gurigeeda dhex fadhida ka aragtay bartaas gabadhii heblaaye ahayd oo ay garanayso oo xoogaa sidii iyaduba u weynaatay u weyn oo ma garanaysaa ilaahay xaalkeedu og yahay oo raadinaysa waxa ay ka raadinaysana way ogtahay way la socotaa gabadha orod bay isku taabatay telefishinka dadkii joogay bay u tagtay oo meesha magaalada qaabilsanaa ku adkayn bay la dhaadeen ku adkay ajiib weeye dadku waa dad iska magaranaysaa Soomaalidu waa xilligan telefoonada wax walba yimaadeen qof magac leh markaa raadinaysid xoogaa waxa weeye alla isaga ka adkaynaya balse waxay ku fiicantay wax weynba ma aha qofka in la waco oo la yiraahdo hebelow qofkaasaa ku rabo walaal lambarkaaga ma siiya ha maya intaa kaliya moogta nimankii marka gabadhii adigu uun iyo dadkii meesha joogay lambarkii ma kama hayso waa loo diiday ogaatay marka aragtay gabadhii inay London joogto way aragtay dad bay wacday magaceedo saddexan bay garanaysaa dadkeedii bay garanaysaa tani ummadii oo dhan bay garanaysaa qolyo qaraabo ah oo London jooga bay dadkii u tagtay waxay tiri gabadha noocaas aan rabaa inay ii raadiyaan xoogaa Soomaaliya markii la joogana qofka wuxuu yahay
inta badan qofka dibadaha jooga markii la arko qof kale oo aan walaalkiisna ahayn ina adeerkii iyagaabaa lambaradooda isu diida laakiin qof dad kale ah oo lambar raadinaya qofka lambarkaas raadinaya dadka xoogaa lambarada way isku adkeeyaan gabadhii lambaradii waa lagu adkeeyey lambarkii waa lagu adkeeyey haddii lambarkii lagu adkeeyey dhowr qof markii dambe gabar baa timi reer familaa soo agdegay iyadoo markaa 3 bilood gabadhaasi ka daba laabanaysa oo xataa markaa waxay raadinaysaa qolyahan qaraabadeeda ah oo ma garanaysaa London iyo meelaha jooga inay bal cid uun ka hesho si ay ugu dirto iyadoo markaa raadinaysa gabar baa timi ciyaal badan wadata oo Ingiriis ka soo guurtay dalxiis meesha guuritaan ma laakiin dalxiis u timi gabadhii bay la kulantay gabadhii bay aragtay dhowr maalmood waxay tir walaalay gabadhaas oo yaraantayadii aanu saaxiib ahayn oo saas oo nooca iyo noocaas oo gabadhaasaan raadinay alla heblaayo waa aqaanaa waka wax weyn maahan bay tiri ninkeedii WhatsApp-kan ka wacay anaa wacay tiri ninkeedii berri haddii ilaahay ninkeedii ilmihii bay wadataa moogtay ninkii baa London jooga markaa ninkii bay wacday heblaayaan u baahnaa heblaay lambarkeeda ii doono iska dhayalsaday macnaha aad buu u dhayalsaday wax weyn agtiisa kama aha maalinkii koowaad gabadhii waa joogtaa walaalay xoogaa tanna baahi badan bay qabtaa way weydiisay tiranahayn gabadhan aad saa dhan ugu khafiifsan tahay maxay tahay markaasay tir walaalay gabadhaa waxaa naga dhexeeya wax aan ilaahay maahaane iyo aabbahay maahaane cid kale ogeyn waxaan hayaa hanti ay iyadu leedahay oo ka maqan aan ogahay maanta haddii ay hesho dunida waxay ka jeclaan lahayd inaysan jirin waxaana arkay iyadoo inaadinaysa oo iga raadinaysa telefishinka magacayga marka dadku ma oga salaan iyo bogaadin iyo saaxiibtinimo iyo bay isaga qaadan karaan laakiin waxaan u hayaa hanti maanta haddii aad adiga aan lahayd haddaan kuu sheego waad ooyi lahayd waa hubaa walaalay baahi noocaasa ii hayse dhaar baan kuu marayaa kitaab jaamaca waxaan kuugu marayaa waa maray bil rafaadinaysa ninkeediina uu leeyahay waa raadinaya ma joogo waqooyigay joogtaa dhinaca waqooyiga aniga koonfurta waa og tahay dhib ma garanaysa uu intaa leeyahay ninkeedii mar walbana uu isaga waa dhayalsanaya gabadhan laftigeedu markay ka tagtaa ugu dambaysa inta badan way ilaawaysaa marar kooban bay ninkeeda weydiisay macnaha gabadhi waxay tiri marka waa hubaa inaad ilmayn lahayd maanta baadidaasoo kale hadday kaa maqan tahay oo aan ku idhaahdo waa tan baadidaadii oo caafimaad qabta oo weliba noocana oo intaa iigu dhiibtay ka qiimo badan walaal marka kitaab jaamaca soo qabo waa kuugu dhaaranayaa inaanan ka rabin maal adduun inaanan dayn aan ku leeyahay ka rabin inaanan xaq ka rabin laakiin iyadoo xaq ay leedahay aan rabo inaan kaga farxiyo nolosheeda inta ka dhimanna haddaad arrintaas ma garanaysaa aad adigu noo dhexaysid nolosheeda inta ka dhimanna kuma ilaawi doonto ninkeedii bay la hadashay war walaalo waa tegay wiil London ma joogo meeshaasaan joogaa dad baan wax wacayaayo calaa iyo kulli xaal 2 bilood oo kacsan bay gabadhiina magaaladii la joogtay tanna ay de maalin walba ma arki karto oo tani wayba baxday carruurteeda baadiye la aaday xoogaa bay maqlado waqtigii baa ka dhacay tii waa soo noqotay waxay tiri walaal lambarkaygu waa kan isoo wac ballan waxaan kaaga qaaday inaan haddii alla yiraahdo
in aan gabadhaa kuu keeno oo aad gabadha kuu keena maaha inaan gabadhaas kuu soo helo oo kula hadal siiyo wakaa safar salaama way ka tagtay gabadhaan waa gabar ladan wiilkeedii iyo ninkeeda iyo abtaad shaqaysta wey magaalada magarasa hanti ku leh ka tagtay gabadhii raalli ahaada dhaqaajis waa tagtay gabadhii waxay aaday London ama Ingiriiska u duushay London bay tagtay hadday London tagtay asbuuc markay joogtayba orod bay isku taabatay haf say u sii socotay waxay u tagtay gabadhii bay raadisay waa la kulantay salaamu calaykum bay tiri calaykum salaam walaalay waxay wadataa gabadha magaceedii waxay ku tiri walaalay heblaayo arrin baan kaa leeyahay inaan kula kulmaan rabaa waa kaa Soomaaliyaan ka imi arrin adag oo adiga dani kuugu jirto ayaan maaragtay kaa leeyahay marka xagee maba ku adkaynba waxay tiri haye walaal gabadhii waa u timi si kasta ahaatee markaas waxay tiri walaalay gabar ayaa fariin ii kaa soo fartay gabadhaas waxay tiri waxay iigu dambeysay 22 sano ka hor gabadhaas waxaa la yidhaahdaa magaceeda heblaayo hebel hebel baa la yidhaahdaa intaa markay tiri tani korbayba u boodayba heblaayo iga waran see ahayd xageed ku nooshahay magaaladeed joogta telefoon ay leedahay waaba kala badbadatayba khalkhal هاي ولا اللي استجيو فاهمس بلور شيدان كسكنا مايا عيال كذا ما عرفت يا أقوين يا أقوير يا انت عيال شيء ما عيال شيء يا قبا هبل ميا قبا هبل أي أقيد ونلقو أقيد واحد تري أنو نين كذا ما أقاني عيال كذا ما كلا أقاني muddada labada bilood oo aan baadiye aad tuulo aad xagga aad aan ku jiray oo iska maaragtay dalxiiska aan meesha u tagay baan joogay laakiin gabadhaasi macnaha telefoonna igama dhigi jirin waxayna igu tiri hanti baan u hayaa haddaan kuu sheego maanta adiga haddaad ahaan lahayd farxad aan la ooyi lahay oohin baaba soo dhaaftay islaantii lambarkeedaysi laakiin arrinkaas waxaa og ninka ay carruurta u dhashay way u sheegtay carruurteeda waaweyna way ogyihiin 5 carruuray leedahay 5teeda carruuri way ogyihiin in ay wiil dhashay wiilkaasna nolol iyo geeri aysan ku hayn si kasta xaaja ha ahaatee waxa dhacday inay gabadhii lambarkii siisay barti iyagoo fadhiyay la hadashay salaamu calaykum heblaayo see tahay waa qof ma waa heblaayo barti baa laysku ooyey laysa salaamayo see tahay xaaladda ka waran hebel ka war hebelka ay weydiinaysaa waa hebel dhintay min sabaan hebel allah u naxariisto garan 91 dabayaaqadeedii adigu iska waayadaasba dhimaynik ka allah u naxariisto ninkaas waa gabadhii iyo wiilkii ka war waxay tiri waa fiican yihiin cirka ay caadaasay marayaan waxay tiri ku soo wacayaa marka gabadhii heblaaye ahayd baa ila joogta iyadaan u mahad celinayaa markaan sheekada dhamaysana ku soo wacaya intaas gabadhii iyadoon waxba si fiican u ogaan bay warkaa keentay waana iska tagtay tii hooyada ahayd
tigid bay diyaarsatay gabadhaas ninkeedu ma oga ilmahan waa tan Soomaaliya joogta gabadha yarta ah ee ninkan inay isku aaba yihiin wiilkan oo adeerka u yahay u qabaa maba ogaba si wuxuu jiraan ma ogta walaasha waxay tiri tigid kaygaan diyaarsanayaa waa ku imaanayaa laasim aniga iyo waxay soo raacayna gabadhayda gabar waxay dhashay aad qaali u ah wanaagsan oo ay maamadu ku kalsoon tahay aniga iyo gabadhayda waa soo raacayna waana imaanaynaa bay tiri ma garatay sidaas daraadeed wiilka yarka war ma hayay moogta laakiin odaygii oo nabadoon ilaahay abaa jooga oo mas'uul ah oo awow ah oo dunida ugu jecel yahay wiilkan mixnad iyo masiibo waxa ah islaantan hooyada ma baa masiibo ee moogta si kasta ha ahaatee islaantu waxay tiri waa imaanayaa waxay tiri walaal dalka intaadan imaan anigu wiilkan inaanan dhalin uma sheegin qisadii bay u sheegtay oo tiri saasaa dhacday macala ninkaygu ma oga laakiin waxa og aabbahay xataa hooyaday ma oga hooyaday allahu naxariistay iyadoon ogeyn bay dhimatay hooyaday carruurtaydu ma oga intaasoo carruuraan leeyahay ninkaygu ma oga aabbahay baa og keliya aabbahayna nin cid wax u sheegaya maaha sidaas daraadeed inaan bal wiilka waxaan fahansiino baa horta ka horeysa oo wiilku maanta hooyada ma ay haddaan waxay noqonaysaa xaaladdu waxay noqonaysaa arrin kale waxay tiri wiilka waa soo kaxaynaya waa inaan London keenaa waa inuu wiilku halkan yimaadaa waa inuu aniga ilaa macnaha inaan la soo wareeg inay wiilkeeda kaxaysatay rabtaa macnaha iyada hadda waxay tiri kaxaynta waxa ka horeysa in bal horta marka hore wiilka la fahansiiyo de inaad adigu dhashay ilaa ma fahansana anigu waa kuu hayay laakiin waxba anigu carruurtayda kama soocin mana ka socna dad kale ninkii hantiilo way hadda bakhaarkii buu gacanta ku hayaayo hanti aan leenahay buu gacanta ku hayaa wakaasoo odayga adeerkiisa ha aab buu yidhaahdaa waka waxay tiri ninkii ninkan dhalay ma garanaysa waxay tiri ninkaygan waxaan ka maqli jiray inuu reer hebel ahaa waagii hore haddeerna waxaa noo yimi waa iyadu markaa waxay garanaysaa gabadhani waxay garanaysaa ninkii ilmaha ka dhalay macnaha ninkii ilmaha gabadha yar dhalay oo dhimatay macnaha ninkii dhintay oo gabadha yar dhalay bay waxay tiri bade baa dhalay moogtay reerkiisii bay garanaysaa marka waxay tiri dee ninkaas reerkaasay isku reer ahaayeen oo ninkii reerkaasuu ahaa laakiin cawo allaale anigu hebel ma oran karo meel uu joogayna dee ma garanayo magaciisi macnaha hebel waa garanaysaa laakiin wax kale ma garanayo meel uu ku dambeeyeyna ma aqaan anna dee cidba ma weydiin oo adaaba iiga muhiimsanaa aanan ku hayn ninkaasna shaqo kuma lahayn waayahay iyadu wiilkaas ninka wiilkeeda ka dhalay dee shaqaba kuma yeelan islaantaas wiilkeedan say ku heli lahayd bay iyaduna raadin jirtay mooyaane ninkaa ma raadin gabadhii waa tashadeen labadii gabdhood waxay ku tashadeen in lala hadlo odayga oo sheekada odaygu uu u sheego wiilka odaygu waa weyel odaygii ninkii buu u yeeray waa nabadoon guud oo beesha nabadoon wiilka yaraa buu u yeeray awow waa awowgiis wuxuu yidhi awow waxaan rabaa tuulo heblaaye inaan aado adiga cidaan ahayna inay i raacda ma rabo inuu kaxaystuu rabaa wiilka
adeerna anaa u sheegaya wakaa haya awoowe ma intaas ahaa diyaar anigu waa ku qaadaya waayahay buu yidhi ninkii wuu u yeeray wuxuu yidhi ina bixi baadiye lama aadine magaaluu la aaday meel magaalaa buu la aaday hotel bay wada degeen hal qol bay wada degeen ninkaasi wuxuu ninkaa ula safray inuu qalbigiisa ka soo dhaadhiciyo sheekuu uga sheekay wiilka odagu adugu si kasta ha ahaatee duuduub wiilkii magaalo kale u geeyey wuu u soo sheegay inay dheeraataan diidaya oo aad u sii badato wuu u sheegay islaantani inay korsatay inay naaska u dhigtay inay saas hooyadii ku tahay laakiin hooyadiis aysan ahayn hooyadiisna maanta ay London joogto ayna nooshahay heblaaye hebele la yiraahdo oo islaan la yaqaan inay tahay aabaha la sheegayna inuusan ahayn ninkan gabadhan dhalay oo gabadhan aysan isku aabana ahayn isku hooyana ahayn laakiin qisada saa u dhacday aabihiisna la oran jiray hebel nin reerkaas oo ahaa hooyada intaa muddada baadigoob bay hooyada ku jirtay heblaayo laakiin hooyadaadii ku dhashay telefishin bay xataa kaa goobaysay oo gabadhan ilmaha u haysa raadinaysa sheekadu way iska hagaagaysaa laakiin ogow saas wiilkii isagoo murugsan buu yimi islaantii hooyadiis ahayd buu gooni ula hadlay hooye maxaa dhacay oo saas ugu yiri maalin iyo habeen bay maqnaayeen odaygii wiilku saantii way iska oyday runta u sheegtay waxay tiri saasay ahayd sheekadu saasay ahayd gabdha yaryaroo saaxiiba baan ahayn waa kaa anaa la socday meherkeedii waa kaa saas waaye xaaladii wiilkii oo og bay islaantii soo duushay oo ay wada hadleen telefoon ka wada hadleen oo islaantaas iska ooyeyso cunugsa hooyanimo uusan isaga dareensanaynba islaantii waa timi hadday magaaladii timi wiilkeedii bay u timi wiilka markaa hadday u timi islaantu gurigii ku soo degtay wiilkii si gaaray u wada kulmeen waa hooyadii laakiin carruurtan iyo dadkan in la fahansiiyo baa iyaduna mashruuc kala ah iyo ninka gabadh islaantan qaba iyo odaygu weli xaaladdu waxay maraysaa weli odaygii iyo islaantii iyo waxay maraysaa islaantan kaloo timi iyo wiilka afartaas cid kale ma oga islaantan gabadhan saaxiib baan ahayn bay tiri ninkeeda waa u sheegtay wiilkan waa inoo kaxaynaysaa wiilkan waxaa la geynayaa Nairobi waka odaygu ma jecla in laga kaxeeyo maya aabihiisa horta la raadinaya aaba raadin loo sheegi maya waxaa la yidhi waa la kaxaynaya islaantii soo booday kaga dhigtay waa inoo kaxaynaysaa waa kaasoo odaygii wuxuu yidhi dee wiilkii muuna dhalin oo islaantu iyadaa dhashay laakiin taluu ku leeyay wuxuu yidhi wiilka haynaga wada heblaayo wiilku gacantii midig weeye haynaga wada dhaqaalaheen uu burburaya maya bay tiri inuu inoo tago baa inoo asalaho carruurtaan maaragtay hadhow xataa uu wax u qabto walaalihii waaya odaygii waa laga saxiixay islaantii muddo waxa la socda gabar ay dhashay baa la socda gabadhii waa walaalkeedee ruma hooyadeed dhashay gabadhii iyo wiilkii ciyaalka xataa waxay u qaateen gabadha inuu rabo sababtoo ah islaanta iyo gabadha buu intaa guriga kula jiraa wiilku waa israaceen wiilkii boorsidiisi waa qaatay islaantii waxay kaxaysatay wiilkii waxay aaday magaaladii oo wiilkan yari ka soo jeeday bay aaday ilaa sheekadu beriga hore waxay iska ahayd wiil aysan gacanta ku hayn cid uma raadin karto laakiin hadda ninkii magaciisa saddexan bay garanaysaa
waana tii uu ninkii waagii horena sheegay inay ilma adeer yihiin gabadha ninkii qabay oo isku jifo hoose yihiin. magaaladii bay tagtay islaantaani, hotel bay ku degtay, dad bay raadisay. isla markiiba wiilkaana wuxuu yidhi walaalahay kuwaan u aqaanay baa magaalada jooga. wiilkii baa loo yeeray walaalkiisa hayo oo hooyadiis hooyo kale u yaqaan cunugaan, ninkan walaalkiis u yaqaan. waa arrin saa gebigeeduba isaga daba kalaabsan oo murugsan. wiilkiis wuxuu yidhi islaantaana waxay rabtaa walaal, islaantaana waday, waxay rabtaa reerka la yiraahdo nin la yiraahdo hebel. cunugu wuxuu ninkaa ma aqaani aniga, hebel ninka la yiraahdo garan maayo. wuxuu yidhi bal adeer iyo dadkiina inaan bartaan rabaaye intaanan dadka iyo baran islaantaana kurba igu haysa. wuxuu yidhi ninkan hoteelka aad degan tihiin qaraabaanaha isaga hala weydiiyo, waa nin jilib culusa ninka. adeerkii laftigiisa intuusan la kulmin ninkii hoteelka, nin odayo meel banaanka kitaab isaga akhrisanaya bay u tageen. islaantii waxay tiri waxaan raadinaynaa nin la yiraahdo hebel. ilaa 3 oday bay sheegaysaa. hebel oo hebelkaa dambe naanays dheer leeyahay. odaygu wuxuu yidhi hebel anugu waxaan aqaanaa nin hebel la yiraahdo oo reer hebela baan garanayaa. toloma ninkaasaan aqoon jiray. markaasay tiri haa, waa hore ay igu dambaysay, xamar buu joogay, noocaasuu ahaa, saasuu ahaa. haa buu yidhi haa waa isaga, isku nin baynu sheegaynaa. dhag odaygaasaa sheegay. ilaahayba kii koowaad buu kala kulmiyey. marka wuxuu yidhi ninkaas meeluu ku dambeeyey garan maayo, laakiin ninkaas saas ahaa. anigu waxaan ogaa isagoo magaalo heblaaye jooga oo waalan baa ninkaas ogaa, oo waaw ah. marniyo ninkaasaan rabnaa wey. magaalo heblaaye yaan kala xiriir karnaa. dee ninku waa nin reer hebel intii bay hoosta ka qorteen. magaalada loo tilmaamayaana 2 saac baa tan looga socda. iyagoo marka saa og bay wiilkii waxay yiraahdeen adeer baan galabtaan isu imaanaynaa. adeer waa u gooyeen, waa dhunteen. wiilkii hoteelku buu imaanaya waayay moogtay ka tage, gaari bay ka haysteen, magaaladii bay aadeen. malaha ninkii isaga ahaa wuu yimi, waatii meelaha laga soo laabtay, wuu yimi, xaas buu guursaday, 5 ciyaal ay u dhashay, wuu waashay. isagoo waalan buu dhintay ninkaas. laakiin intuu miyir qabay buu islaantiisan iyo walaalkiis wuxuu ku oran jiray naag ba iga maqan, uur igala maqan. naag baa uur igala maqan. ilaa isagoo oo weyn oo nin weyn ah buu guursaday. carruurtaana iyagoo yarar buuba ninkaani waashay oo dhintay. laakiin intii uu ahaa iska doobka ahaa oo doobnimo ku weynaaday, ku gaboobay, gabow weynaan maaha, ku gaboobay buu wuxuu dhihi jiray naag iyo ilmaa iga maqan. naag ina hebel la oran jiray iyo ilmaa iga maqan. walaalkiis bay meel ugu qoran tahay, marka niyadda kaga qoran tahay. hadday meeshii tageen dadkii ay la kulmeen, isla markiiba waxaa la yidhi ninkaas allah u naxariisto, xaaskiisii iyo ilmihiisii baa jooga. xaaskii ilmihii baa loo tegey. walaalkiis sheekadii waxay tiri gabadhaani ninkan u dhalay. ninkan isagaa dhalay, ninkani waa ina hebel, anna hooyadiisaana. gabadhii bay ku tiri, waxay tiri gabadhaas wuu ii sheegay
waxaa loo yeeray adeeradii nin adeerkiisa nin macnaha wiilkan yar adeerkiisa baa markaa wuxuu yidhi adigu heblaaye hebel reer hebel ma tahay haa waa sax waxaa sheegaysaa walaalkay anuu ii sheegay marka wiilkaani garareed buu leeyahay isku joog cunugan yarkaa garareed buu leeyahay waaba aabihiis oo meesha taagan oo qof kasta markaanti xataa uma baahna dadko dhan halkaa markay ka arkaan nin walba oo ninkaa yaraantiisii dhallinyaradiisa yaqaanay bannaankaas u yaalla wiilka sidii baa lagu kaxeeyey hooyadii Nairobi bay geysay carruurta yaryarka ahaa oo agoonta ahaa walaalihiis ahaa wuu bartay tegi cunugi ingiriisku galay wuxuu dib uga kaxeeyey dalka gabadhii macnaha islaantii hooyada u ahayd oo korsatay gabaray dhashay buu kaxeeyey oo aan ahayn tii la dhihi jiray isku aabaatihiin aan ahayn ee mid kale ah oo yar buu kaxeeyey oo ingiriiska geeyey ciyaalkii yaryarka ahaa walaalihiisna sidii buu uga warhayaa halkaas reerkaa waxa uu jooga marka wiilka iyo gabadhaas oo ninkaani hooyo wuxuu u yaqaanaa islaantii korsatay adeer wuxuu u yaqaanaa adeerkiis kuwii kale uu soo bartay oo faamilkiisa ahna waa iska faamilkiisi laakiin isaga waxa uu asala kuwii isaga korsaday iyo odaygii awoowaha ahaa waa uu awoowe wuu biilaa ilaa hadda buu biilaa odaygii iyo islaantii gabadhii walaashiis ahaydna xataa al'aan waa walaashiis walaalnimada walaashii hooyadii dhashay ma aha laakiin waxay u ahayd walaashii hooyadii dhashay waana tahay oo waysada kama jebisade naas bay wada nuugeen waa walaashi Londonna waa ku walaalo oo de hadda macnaha isagu si kale ku keenay laakiin waa walaashi dadku wuxuu yaqaan inay walaashi tahay hooyadiina waa la jooga hooyadiina qalbigii u deg gabadhii kale oo walwalaysay ninkan haday dhiman lahayd odaguna dhiman lahaa cid u sheegi lahayd aabihii iyo hooyadii ma jirto ninka aabihii hooyo waa qisadeeniina intaas bay inoogu gabagabowday waxaan u noqonayaa dad badan baa jira oo saas u maqan wiilkii commentigiisii baan u noqonayaa dhaqan xumo maaha laakiin waa dhaliil tusin iyo ku cibro qaadasho iyo faa'iido iyo dhiirigelin intaasaan kusoo gabagabaynaa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh nooli kulanteed